في عنتاي مالكم بدو حكي دقتها امساد باتاي كورن بلغان ساد وحو دقتا كورن فريدة المسكلة ساتين ربع عنك لولا عنك لولا قرنك هنولا هذا هنولا هذا قرنك ودين غير سمالة تيرو غير الشعداء طاوضيال سو دوادا ما تروح سوقنا هاي جيد هوري حكا deegaanka gobolka Boqortooyada ayaan ku suganahay faloogaadiyo aad u qurux badan halkan ka duubi doona hadii ilaahay ka dhigo iminka waxaan ka soo baxnay magaalada Wadaamgo ciidi hawdka deegaan carrasan ayaan joognaa daawasho wanaagsan waa subax barqaa wafti aad iyo aad ballaaran ma ku maraynaa uu hogaaminayo wasiirkii wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha mudan Cali Maxamed Xasan Cali Marreexaan halkan ban hadii ilaahay ka dhigo faloogaad qurux badan ka sameynaya ilaa hawdka sare xadka ayaan soo mari doonaa hadii ilaahay ka dhigo bal isha ku hayo faloogidan uu ka duwan la socdo insha Allah ta'ala hadii ilaahay ka dhigo aad iyo aad u mahadsantiin العساتي عيد هودك إعلانك إسمري goorsheegtu waa subax salaad hore hadda un bay qorraxdu soo baxday waxaanu iminka ku waabarisanay isla markaana aanu ka kalihi doonaa magaalada xarunta gobolka Togdheer waxaanu u sii jeednaa xagga iyo gobolka Saraar ee magaalada madaxiisa Caynaba kadib waxaanu aadi doonaa hawdka sare annaga oo sii mari doona magaalooyinka Wadaamgo kaartada Qorilugud ujeedkaanu halkan u tagnaa waxa weeyaan inaanu magaalada kaartada ee deegaanka Qorilugud ee gobolka Buuhoodle oo loo dhagax dhigayo ceelbiyood riig ah isla markaana riigaga dhaadheer ee boorhooliska ah loo dhagax dhigayo iyadoo wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha uu safarkan ugu hogaaminayo halka markaanu ka dhagax dhigno waxaan tagi doonaa deegaanka degmada Qorilugud intii aanu ku jirnay safarkan waxaanu dhulka ku arkaynay rayska ramaaska biyaha dooga iyo daaqa iskaadhay wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Cali Maxamed Xasan maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Sakariye iyo agaasima ceelasha dhaadheer iyo wafdi kale oo ballaaran ayaa halkan waqti ku qaatay kadib waxaanu uga sii soconay halkan waa duleedka magaalada Wadaamgo kadib waxaanu sii soconay aanu caroonay hawdka sare annagoo sii dhex jibaaxaynay wadooyin raf oo laakiin aan laami ka dhicin waxay isheedu qabanayeen geela aad iyo aad u qurux badan oo isla markaana doogii cunay dhaamam la soo dhaamiyay oo reerii soo dhaansadeen iyo geel gaaniya irmaan isugu jira isla markaana qaar dhalay iyo qaar guran bay lahaa sidoo kale waxaan arkayay fardo aad iyo aad u qurux badan oo ay dhalinyarta qaar ku xaragoonayaan isla markaana soo dhaweynaa ay kaga qayb qaadanayeen farda noocyada bal wax ka ogow عيدي فرداها halka ka baxaysa fardaha qosolka fardaha maxaa la yiraahdaa qosolka fardaha maxaa la way qosliyaan imka way ciyaarayaan waan dharkeen darmaan wagad baa la wagan markii boqol fardu gaadhaan wagan baa la la socda noocyadooda idin kala sheegi doono faraska lab waxa la singa la yiraahdaa ka dhadig waxa la geenyo ka yarna waxa la darmaan baa la ka yar marka dhashay darmaan baa la فرس بفرس قوابك كعد يهي أيا وحلا الشيء إنه كبرت بدنيا فرس أنت عد يا فرس قوابك عد أيا فردا وقول له يا ديب كأنت تنبح على الصين فردو شيء عدو يسوق دفاعات وحي استعمال الله اللغة التنبيه أي استعمالان حراتي التنبيه فردا ضمبابورا اللي لحظة sidoo kale faraska farda ka dheereeya ama wax dheer wax la yiraahdaa sunaari baa la yiraahdaa fardaha haraadka oonka iyo gaajada midna uma adkeystaan waa xoolaha u nugul baa la yiraahdaa intaaba maalin haday qadaan maalin labaad waxay doonayaan biyay doonayaan fardu waxa loo isticmaalaa hub
soomaalida oo kale waxay u isticmaali jirtay hub, waxay isticmaali jirtay gaadiid, waxay isticmaali jirtay qurux iyo sharaf ahaan. sidoo kale waxay u isticmaali jirtay in dumarka lagaga bixiyo markii la guursado yarad ahaan. faraska ninka faraskii ragga kale wuxuu dheeraa waxyaabo aad iyo aad u fara badan. waxyaabaha kale ee farduhu ay la gaarkiyiin waxaa ka mid ah fardaha intooda hoose wax la qoob. fardaha iyo dameeraha inta hoose lugta inta ugu hooseysa wax la qoob. ishiisa wuxuu wax ka arki karaa farasku 350 degree ayuu ishiisa wareejin karaa. isla markaana wuxuu dareemi karaa isagoo halka taagan waxyaabo eriyada ku xeeran oo dhan isagoo aan si direct u eegin. sidoo kale farduhu markay wax dareemaan ama laga nixiyo waxay isticmaalaan dhaga. halka dareenkaas ka yimaado dhagahay kor u taagaan isla markaana dhaga u jeedo. hadda marka saa u jeedo farduhu waa waxyaabaha sensitive-ka ah ee aad iyo aad ka u dareemaa dareenkoodu aad ka u sareeyo marka la eegayo xagga dadka tiraado markii uu boodaya dhagu taagaya. sidoo kale fardaha Soomaalida agtooda aad iyo aad bay qiimo ugu lahaayeen. baxdo faraska gaabi sidoo kale wax la magaan baa leedahay tartanka fardaha waxa la hadeedan baa la hadeedan faraska dheereeya Allah marka kubad ku dhaxasho fardaha dhexdeeda marka kubad ka hesho salaad ka gaarsi ka صار بهركا صار كعب وكا الله لك ورد عيالتي ما نعتني تك حبيبي ملايين صلاة safar dheer aanu kasoo bilownay magaalada Burco kadib waxaanu soo gaarnay goor galaba magaalada Coodanle ee gobolka Buuhoodle halkaasi oo si waafin lagu soo dhaweeyay isla markaana ka sii casriyeynay indha iyo eegagis lagu sameeyay mashaariic wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ka fulisay oo ugu horeeyo riig biyoodka oo waqtigii abaaraha iyo biyo dhaamiska la baxsaday ummadda ku dhaqan gobolkaasi Buuhoodle inta ugu badan iyo gobolka Togdheer qaybo ka mid ah waxaanu uga carownay isla markaana aanu sii dhaafnay degmada Balidheeg ee magaalada kale intaanu halkan sii soconay Coodanle iyo u dhaxaysa magaalada Balidheeg waxaanu ku arkaynay dadka xoolaha dhaqanaya oo si fiican xoolahooda u ilaashanaya dhulka oo baadkii nimcooyinkii ay ku horeen ay soo saareen baad aad iyo aad u fiican isla markaana guuyo jiilaalba ku filaan doono xoolaha. sidoo kale waxaanu arkaynay awrta ku qoqan geela ee ku doobiyeysa oo iyaguna wadadanka dhinaceeda aanu ku arkaynay. waa safarkii ugu xiisaha badnaa ee intaan gelayay aan galo maadaama aan hawdka sare ee magaalada Burco jirin wax vlog laga soo duubay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo maanta vloggerkii koowaad ee ka soo duuba hawdka. dad badan oo halkan ka daawanaya waxay u xiisi doonaan deegaanadoodii ay yaraantoodii ku noolaan jireen. waxaana lagu soo dhaweeyay magaalada Balidheeg afaafkeeda hore iyadoo dad aad iyo aad u fara badan ay nagu soo dhaweeyeen. kadib waxaan u hoyin doonaa isla magaaladan ayaan caawa joogi doonaa aan wada socono insha Allah. magaalada Balidheeg oo ah magaaladii ugu soo dhaweynta ballaarneed isla markaana ciyaartooygeeda, ardaydeeda, waxgaradkeeda, waayeelkeeda, cuqaasheeda, ururada haweenka, bulshada iyo noocyada kala duwan ee bulshada dhammaan ay halkan isku soo baxeen ayaa wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha iyo wafdi ballaarnaa uu hoggaaniyay si waafiyo soo dhaweeyay.
kadib soo dhaweyntiisii isla subaxii waxaanu xadhig ka jarnay dhaam weyn ceel weyn oo ay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ay ka qoday deegaankan sidoo kalena dhammaan fasilitieskii u baahnaa loo dhamaystiray hadday tahay soolarkii dararkii xooluhu ka cabayeen bamkii taangigii iyo kaydkii biyihii magaalada siinayay keesidii ay magaaladu ka cabaysay wixiiba loo dhamaystiray kadib xadhigga markaanu ka jarnay waxaanu ka soo jarnaadnay magaalada Beledweyne annagoo u sii jeedna deegaanada Taalabuur iyo Shanshacade. inta u dhaxaysa degmada Beledweyne iyo magaalada Taalabuur dhulku aad iyo aad buu dooganaa oo roobabkii guga ayaa si fiican u maasheeyay dhulka waxa ka baxay dhir kala duwan oo ay kamid yihiin bilcilka mareerka maraaga gobka xagarka iyo xaran reebta waxaanu soo galnay magaalada Taalabuur oo aanu ka shaahaynay kuna nasanay kadib waanu ka ambabaxnay anagoo sii dhex jibaaxnay hawdkii waxaan fadhiyay gaariga daaqada anigoo dhulka daawanayay dhulka waxa ka baxay dhir aad u kala duwan ah iminka halkan magacyadooda ku soo koobi karaynin waa deegaan aad iyo aad u qurux badan oo bilicsan goor gaaban qoraxdu gaaban ayaana lagu soo dhaweeyay magaalada Shanshacade ee xarunta gobolka Togdheer dadku aad bay noo soo dhaweeyeen waxaana halkaas xadhigga laga jaray mashaariic kala duwan oo ay kamid yihiin riig biyood ay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ka qoday solarti biyaha u soo saaraysay dararkii xooluhu ka cabayeen iyo biyo ballaarin lagu sameeyay magaalada iyadoo keesida ay magaaladu ka cabaysay sidoo kale taangi weyn oo kaydaba biyaha loogu sameeyay bal la daawada magaalada Shanshacade waa magaalo dadka ku nool ay gob yihiin halkan aad arkaysaan waa balliga Shanshacade waa balli aad iyo aad u weyn oo qurux badan oo overgreen ah roobabkii guga ayaa buuxiyay iminka wuu buuxaa halka biyaha weydinka ka arkaya waxa ka baxay dhir kala duwan oo kamid yahay gobka isla markaana aad u qurux badan iyo maraaga wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Cali Maxamed Xasan Cali Marreexan iyo waftigii ballaadhnaa oo hogaaminaya ayaa halkan waqti ku qaatay maadaama mashruucoodii ugu dambeeyay ay halkan xadhigga kaga jarayaan kadibna aanu si dhaadhici doono gobolka Togdheer waa intii aan dhul marayay meeshii ugu quruxda badnayd ee aan maro weeyaan waa dhul aan niyadeyda ku soo koobi karin quruxdiisa roobabkii guga ayaa maasheeyay aad iyo aad u soo jiitaanay ahaan shakhsi ahaan aadna uu qurux badnaa run ahaantii biyihii guga ayaa ka buuxay daawasho wanaagsan faloogeennii quruxda badnaa ee aan idinka soo duubayay hawdka sare waxaan ku halkan ku arkay balanbaalista noocyadeeda kala duwan nooc xasanna balanbaalis qalinimada oo balliga duulduulaysa iyo gobobka aadka u waaweyn faloogeennii quruxda badnaa ee aan idinka soo duubayay hawdka sare ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer iyo Buuhoodle waxaan marti idinka hay inaad subscribe tii saartaan like tii saartaan ii share gareysaan wixii aaraa ee cusub aad haysaana inaad comment nagula wadaagtaan aad iyo aad bad mahadsantiin asxaabteeda daafaad dunida ku kala suganay sidoo kale waxaan la socodsiinayaa inaan safarkan kadib aan u bixi doono gobolka Sanaag caasimadiisa Cergaabo la socda oo isha ku haya waxyaabo aan la soo koobi karin ma disoo duubi doona hadii Ilaahay ka dhigo hanaga hadhina aad iyo aad bad mahadsantiin la socdo vlogga